wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadana Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa saaka gaaray gobolka Hawd xaruntiisa magaalada Beelgubadle waxaana halkaasii ku soo dhaweeyay barasaabka gobolka Hawd Axmed Cige iyo xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xisbiga wadana Yuusuf Nuux Tadhase oo muddooyinkii u dambeeyay baa ku sugnaa magaalada Beelgubadle oo ay ka socoto diiwaangelinta kaarka codbixiyaha ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay barasaabka gobolka Hawd Axmed Cige iyo xogayaha ciyaaraha xisbiga wadana Yuusuf Nuux Tadhase oo gudoomiye Cirro uga waramay hanaanka ay u socoto diiwaangelintu mahad ilaahay baa u sugnaatay dhammaanteed maanta halkan waxaa inagu soo booqday gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan shalayna waxaa ina soo booqday wafdi uu hogaaminayo wasiirkii diinta iyo waqaafta Sheekh Khaliil iyo xogayihi xisbiga kulmiye iyo xogayihi xisbiga wadani oo aynu markii dambe ilaa iyo salaxle u sii galbinay kala qayb galnay dhammaantood waxa u socdaan fariinta odhanaysa muwaadin istiiwaangeli muwaadin ayuunbaa maanta laga shaqaynaya maalin kambeyn iyo maalin siyaasadeed midna maaha gudoomiye halkan gobolka Hawd si fiican bay dadku isu diiwaangeliyeen goobahooda oo dhan adna waad soo martay waad nala aragtay annaguna waan soo marnay maalmintii cilada yaryar oo xagga jiimada iyo xagga farsamada ah baa maalintii hore dhacday alxamdulilah waa la hagaajiyey waxaan kugu mahad celinayaa booqashadaada iyo indhaynta aad noogu timi ugu dambeyn waxaan leeyahay waftidaas ka soo horeysana shalay way noo timi oo iyaguna meel walba soo mareen waxaan u mahad celinayaa ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii hawshan wax weyn nagala qabtay waxaan u mahad celinaynaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u mahad celinaynaa xusbiyada qaranka ee Cabdiraxmaan ugu horeeyo ee na soo booqday waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dadweynaha fariinta qaatay ee lagu wacyigeliyay ee diiwaangelinta ugu jira ee meelaha fogfog iyo meelaha dhowdhowba laga soo gurayo sideen la wada soconaba dalkeena Soomaaliland waxaa ka bilaabmay diiwaangelintii waxaan ku sugnaa muddooyinkii u dambeeyay muddo 5 cisho gobolka Hawd xaruntiisa Beelgubadle oo ay si fiican uga socoto diiwaangelintu runtii waxaan rajaynaynaa in dadkii aan hore isku diiwaangelin iyo dadkii qaan gaadhayba ay isdiiwaangeliyaan ay kaarka qaataan si qof walbaaba uu gacantiisa ugu ciilbaxo wacyigelintu way socotaa inkastoo gobolka Hawd dadka badankiisa ay xoolo dhaqatiin haddana way soo gelayaan runtii diiwaangelinta way qaadanayaan waxaan odhan karaa si ka culus sidii hore ayay diiwaangelintu u socotaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inay si khayr leh inugu dhammaato gobolka Hawd runtii waa xaruntii taariikhiga ahayd waa hooyadii Soomaaliland waxaan jecel lahay in intii diiwaanka isgelisay in ka badan insha Allah ay isdiiwaan geliso waana shaqadayada muddada inta leegna waanu ka shaqeynay sidii dadku isku diiwaan gelinayeen saaka u dambeysay waxna soo maray gudoomiyaha xisbiga madaxweynihii Beritoole Cabdiraxmaan Cirro iyo wafdi uu hogaaminayo isagoo ku yimid gobolka Hawd indhayn siday u socoto diiwaangelintu insha Allah markii dambana wuxuu noo dhaafay dhakaayo salaxley xisbiga wadani waxa ka go'an in wacyigelin aad iyo aad u balaaran oo aad u culus ay dadka wacyigeliyaan runtii si doorashooyinka soo socday golaha iyo deegaanka uu xisbiga wadani uga dhex muuqan lahaa awoodna uu ku yeelan lahaa waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliland meel kasta ay joogaanba maalinba waa meel goobaha ku xiga Hawd iyo Boorama iyo Gabiilayo kale in iyaguna aad ugu diyaar garoobaan ugu dambeyntii waxaa isaguna halkaasii ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Cirro oo bulshada ugu baaqay inay qaataan kaarka diiwaangelinta codbixiyaha waxaanu yidhi Bismillahir Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waxaan mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Hawd oo hadda nagu soo dhaweeyay halkan waxaanu maanta u socdaa inaan ka mid noqdo dadkii faraha badnaa ee arrinta wacyigelinta diiwaangelinta u socday fariintayduna waxa weeyaan gobolka Hawd waan soo maray goobo badan qaar kalena waan mari doonaa
waxaan farayaa dadka in aada loo dadaalo waa laga yaabaa dee xoolo dhaqata inuu nahay oo waxyaaba qaarkood way nagu adag yihiin laakiin goobihaan soo maray in badan dadki ma imano ama xoolahaba laga yaaba inay ku maqan yihiin waktiga henrsana aad buu kooban yihi waa maalinta saddexaad berriun baaba ka hadhay marka dadka waxaan ku guubaabinayaa in aada laysu diiwaangeliyo odayaasha dhallinyarada axsaabtu waa ka mid dee mas-uuliyiinta dowladdu waa ka mid wacyigelinta guud commisshonku waa ka mid marka waa inaynu ku dadaallo uun dadku inuu isdiiwaangeliyo si aan u waayin xaqiisa ha dhowto inuu codeeyo marka aad ha looga faa'iidaysto wakhtiga inamadu waxay ii sheegeen badankoodu intaan soo maray ciladii hore maalinta hore mooyaane inaanay wax dhibaato hadda qabin qalabkuu wada fiican yahay shaqaaluhu dhammaystiran yahay meelaha qaarkoodna loo soo xoojiyey wixii ay u baahnaayeen goobtani ka mid tahay marka dadku ha isdiiwaangeliyo dhallinyaradu ha isdiiwaangeliso dadka xoolo dhaqatada wixii lasoo guri karo ha lasoo guro marka ha la isdiiwaangeliyo